aye jawaabteena marka waxay noqotay qaybteeni hore ogaa yara naga go'ay 3 loo qeybiyay 4 3 jirita jawaabta saxda waa 3/4 jawaab saxda waa 3/4 qaybtan bay noqonaysaa qaybta xigta marka su'aashan tobanaad oo inverse matrixka ayaa waxaa u baahanaa inaan xalino sidaa daraadeed marka waxaan tagaynaa page blankigeena buuxa page blankiga buuxa su'aashu waa su'aalahan oo kale waa markaan haysano inverse waxaa lagu helaa ama inverse waxaa lagu helaa 1 determinantiga b ama determinantiga lagu dhuftay jawaabta ama matrixkaan haysano eeda maanta aan haysano tusaale waxaan haysanaa 3 5 2 4 3 5 2 4 sidaa daraadeed waxaa raadinaynaa determinanti waxaa lagu heli jiray waxaad og tahay meesha waxay ka koobantahay a e b e c e d determinanti waxaa lagu helaa marka labadan oo laisku dhuftay laga jaray labadan oo laisku dhuftay marka maxaa ku jira marka 3 lagu dhuftay 4 aan leenahay laga jaray c lagu dhuftay d oo la mid ah marka 5 lagu dhuftay 2 labadan markaas isku dhufana marka 4 iyo 3 markaas isku dhufana waa 12 laga gooy labadan markaas isku dhufana waa 10 waxaa ka jirtaa marka 12 ka jar waxaa soo haraysa 2 determinantiga ama dedsisaan u helo waxay noqonaysaa 1 determinant waxaan haystaa 2 lagu dhuftay marka inversiga a marka waa la rogayaa su'aashan oo u samaysnayd marka qaabkan waxaa laga dhigayaa marka waxa la yiraahdo d minus b minus c inta marka rog marka inta waxaa waaye waxaa la yiraahdaa d waxaa haysanaa marka 4 bedelkii a waa inay gashaa 4 b na waxaa ku dhacaya minus waxba isbedelayo c na waxba kuma dhacayo waxay noqonaysaa minus qaybtii marka a joogta baa qaybta booskii waxay imaanaysaa d oo ayadanu 3 kadib waxaa leenahay marka waxay la mid inta ku garaac 1 times 4/2 waxay noqonaysaa marka 4/2 1 times 1 times 2/5 times 5 waxay noqonaysaa minus 5 lagu dhuftay 2 maxaana keenayo tiradan hooseeheeda 1 5 ku dhuf 5 1 2 ku dhuf marka labadan isku dhuf marka waxay noqonaysaa ayadana waa minus 2/2 1 half waxaa ku dhufataa 3 waa 3/2 marka square-kii ama waxa la yiraahdo waxaa sameynaynaa qaybtii ahaa matrixka waxaa sameynaynay qaybtan ayaa waxaan ku dhufanaynaa kan waxaa noo soo baxay 4/2 halfkana waxaa ku dhufanaynaa -5/2 labadan isku dhufanaynaa waa -2/2 labadan isku dhufanaynaa waa 3/2 sidaa daraadeed waxaa leenahay marka labadan isku qaybi waxaa noo soo baxaysa 2 labadan isku qaybi waxaa noo soo baxaysa -2/2 -2.5 labadan markay soo baxaan waxaa noo soo baxaysa -1 labadan markaas isku qaybi waxaa noo soo baxaysa 1.5 jawaabta noocan aan soo saarnay ayaa waxaan ka raadinaynaa jadwalka aan isticmaalayno jawaabtan aan soo saarnay waxay ku jirtaa qaybta c-da marka jawaabta saxda waxay noqonaysaa c okay kan waxa uu dhahay su'aasha 12 the solution of 7q ama 8q minus 7 greater than minus 15 intan marka saan ku xalin waxa leenahay 8q minus 7 greater negative 15 kadib kan waa sidii equationska caadiga ama formatka kusoo qaadanaynay 8 waxa kan u samee 8 waxay la mid tahay -15 marka 7 kan iska wareeg wuxuu qaadanayaa +7 8q is equal to ama greater than labada marka kala jiro waxaa soo baxaysa -8 halkan waxa uu qaybinayaa si q aan u helo 8 halkan waxa uu qaybinayaa 8 8 kan baa soo baxaya q gaaga hadda wuxuu la mid noqonayaa ama q greater than equal to -1 halkan ka soo saar jawaabtaada waa jawaabta jawaabtaada waxay noqonaysaa marka jawaabta waxay noqonaysaa jawaabta okay su'aashan waxay noqonaysaa the solution of the equations ka noocan ah waxay noqonaysaa wax soo bixi doona 1 iyo x1 waxa soo baxaysa 1 x na waxa soo baxaysa 5
midna 1 midna negative 5 midna waa negative 1 ama labada naftiis. jawaabtu waxay noqonaysaa horta waa qaybta koowaad. marka ma samaynayo ardayda maantana sidaas baan ku dhahay. jawaabtaas marka adi xalli adigoo isticmaalaysid qaabkii ama equation noocan aan ku soo xaliyey su-aashii aan maraynay. su-aashan waxay ahayd su-aasha lixaad baan ku soo xalinay waddan noocaan ah. haddaad fahmi weyso waxaad igala soo wacaysaa oo jawaabtay ku soo bixi weyso nambarkan hadda aan kuu qorayo ayaad iga soo wacaysaa anaa kula xalinaya markaas insha allahu. aan ka soconna marka su-aasha xigta aan galno. su-aasha xigta guaranteega linekan xariiqan uu marayaana laga doonayaa. guaranteega linekan ama slope-ka guarantee means slope. waxaa leena marka slope-ka si loo helo negative 2y ayaa waxay la mid tahay si equation usoo saaro 6 ee 3x kan markaa soo wareej waxay noo qaadanaysaa negative 3x. marka si y aan usoo helo meel waxaan u qaybinayaa -2 meel waxaan u qaybinayaa -2 -2 iyo -2 soo baxay waxa soo harayo y wuxuu la mid yahay marka qoladan waa kala qaadaya. waxaa leena marka 6 divided by negative 2 negative 3x loo qeybiyey negative 2 y waxay la mid tahay labadaa markaan isu qeybiyo waxaa noo soo baxaysa negative 3. inta positive baa yaala intana negative positive markaan isu qeybina waa negative. okay labadan waxaa ku dhacay waa isla goosanayaan waa plus 3 iyo 2 iskuma qaybsami karaan. waxaa leenahay 3/2x. saa daraadeed markaa raadinayo y markaa raadinayo y waxaa lagu raadin jiray marka slope la helayo mx plus c. mx plus c y wuxuu la mid yahay marka mx waxaa waaye 3/2x cna waxaa haystaa maanta -3. saa daraadeed slope-kaaga marka waxaa loo soo gaabinaya m nambarka u wada waa 3/2. jawaabta laysii 3/2 ka raadi waa nambarka c. markaa jawaabta saxda waxay noqonaysaa nambarka c. waxaa marayna su-aasha 14aad. the expression of log 8/64 waxay u dhigantaa inta mid ka mid ah. waxaa soo qaadanaya sida logaritmka form 2 ay ku qaadateen 8 waxaa leedahay lagu dhuftay 8 waxay la mid tahay 64 lambar keeni kara 8ka meeqa jeer isku dhacay si 64 u gaaro 2 jeer. marka 2 timeska ama 2 jeer halkan ka raadi waxay noqonaysaa jawaabta c-da inoogu qoran. okay su-aasha inoo xigta waa garaafka meesha inoo muujisa. garaafkan waxaa lagu dhahay marka na diagram below sawirka hooska ugu muuqda wuxuu jaray ama oo laga wado marka xariiqan xariiqan ayaa intersect gareeyay wuxuu jaray fg wuxuu jaray fg pointiga uu ka jaray waxaan allahay waa g. marka adigoo ku angaleynayo xaglaha cabirada angle measures xaglaha la cabira ee sawirka muuqda value-ga x kan soo hel. si marka x kan haddaan dhehnayn 3 ama similar triangleska waa angleska maadaama isku mid waxaan sameynaynaa si qiimahan x kan u soo helo 81 kan ayaan waxaan ka jarayaa 43. hada marka 81 degree laga gooyey 43 degree angle waxaa noo soo baxaysa marka 38 angle 38 angle ayaa circle-ka nagu jira. isaga baan calaamada kula ordayna ama aan calaamadaynayna marka. okay qaybta xigta waxaa lagu yiri the mean of the numbers kan ayaa waxay tahay 2 5 3 ama 2 3 4 5 6 iyo x celceliskooda waa 5. saa daraadeed qiimaha x ka meesha ku jira soo hel. qiimaha x ka meesha ku jira soo hel. qiimaha x ka meesha ku jira si loo soo helo marka waxay u baahan tahay in shaqo la galo. waxay u baahan tahay in shaqo la galo u baahan tahay. marka in shaqo la galo shaqada markaan galayna marka waxaa leenahay ii sheeg si loo soo helo marka waxaa leenahay miinka waxaa lagu heli jiray x barada amaan variable isku dardaro 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 2 3 4 5 6 plus x divided by meeqa number waa variable 2 2 3 4 5 6 loo qeybi 6 waxay la mid tahay waxaa soo baxay qiimo ah 5.
maxaa leenahay marka waxaan oranaynaa oon leenahay qiimayaashaan isku dardarsanaynaa marka 5 3 2 ku dar waa 5 5 ku dar waa 10 10 marka waxa ku dartaa 4 iyo 6 isku dartay 20 waxaa leenahay marka inta waxaa noo soo baxaysa 20 waxaa leenahay 20x 20 lagu daray x ayaa waxay la mid tahay labadan baad isku dhufanaynaa waxaa noo soo baxaysa 30 x is equal to marka 30 numberka 20 ka soo wareeg wuxuu qaadanayaa minus 20 x kayga wuxuu la mid noqonayaa 30 ka jar 10 ku jirtaa marka yes waa numberka c marka waan hubin kartaayo meesha x 10 ka soo heshay ku buuxi waxay noqonaysaa 30 soomaan halka maadaama 20 ahaa waxay noqonaysaa marka 20 lagu daray 10 loo qeybiyey 6 is equal to 5 haddii 5 soo bixiisa khalad marka labadan isku dar waa 30 loo qeybiyey 6 waxay la mid tahay 5 30 6 qeyb marka waa 5 is equal to 5 waxaa kaloo ku hubin kartaa kan quruf marka horta kan 30 sameeyna haa is equal to 6 quruf marka 30 waxay la mid tahay 30 marka jawaabtii marka waxay noqonaysaa numberkan sida waa jawaab sax ah saasha 17 waxaan leenahay area badkan shed gareysan soo hel dhinaceeda waa 14 cm baana waa lagu siiyay qaacida fudud waxaa isticmaalinaa area anoo hal dhinac haysto waxaa lagu helaa side square areada waxay la mid tahay marka 14 cm waxaan leenahay 14 cm square saar waxay noqonaysaa marka 14 cm square saar waa 14 cm oo lagu dhuftay 14 cm kare waxay soo baxaysaa marka waa 196 cm square 196 cm square jawaabteena ku jirtaa marka waxay noqonaysaa jawaabta D okay su'aasha 18 baa inoo maraynaa xilligii lagu guuray xilli kuleelaha ama dry seasonska ayaa goodska xaafad dhinteen 600 ayaa laga tagay imse good ayaa dhimatay marka imse goodis kamida ayaa dhimatay si loo soo saaro marka percentage-kan fractionka meesha ka qaad علينا 2 over 5 marka waxa ku rufataa 600 si fudud marka inta waxa qaybsaa 5 waa 5 inta marka 5 u qayb waa 120 waxa ku rufaynaa 2 waxay noqonaysaa 240 ama 260 ku dhufo 600 ku dhufo waa 1000 iyo 200 oo seeheed marka waa 1 times 5 marka 1205 u qayb iyaduna waxa noo soo baxaysaa 200 iyo 40 kootis ama ari ah ayaa halkaas ku nafwaayeen jawaabteen waxa noqonaysaa jawaabta A okay Ahmed ayaa wuxuu doonay inuu soo iibsado saacad cusub qiimaha saacada suuqa ka joogta waxa waa $50 Ahmed waxa laga soo siiyay $40 marka qiimaha suuqa uu ka joogo Ahmed meeqo ka hooseeya marka qiimaha suuqa oo $50 ahaa waxa ka jaraynaa qiimaha Ahmed laga soo siiyay $40 marka qiimaha waxaan soo haray marka $10 halkan $10 ka raadi oo $10 waa $10 su'aashan ugu dambaysa qaybta circle-ka ama multiple choice-ka waxay noqonaysaa marka afarta tiro ee ugu horeysay geometry-ga ayaa lagu siiyay waa 2 8 4 13 128 marka qiimaha xiga waa inta mid kamid ah soo saar waxa leenahay marka arta difference-ga iyaga u dhaxay waxa lagu geli jiray 2 ga divide by a1 si aan u helo waxa iyaga u dhaxay marka 2 waa lambarka labaad lambarka labaad oo 2 waa 8 waxa uu qaybinaysaa a1 lambarka koowaad oo 2 ah markaas u qayb marka waxa waa 4 marka fiiri marka lambarkan labada 4 ku dhufo waa 8 8 4 ku dhufo waa 32 4 ku dhufo 128 marka lambarka shan muxuu noqonayaa 128 baa waxaan ku dhufanayaa lambarka 4 ka ahaa waxa noo soo baxaysa marka 8 waxa ku dhufataa 4 waa 32 waxaan qoranayaa 2 waxa wata 3 waxa wata 3 4 waxa ku dhufataa 8 waxa ku dhufataa ama 2 4 ku dhufo macnaha waxay noqonaysaa 128 waxa ku dhufataa 4 8 ku dhufo 4 ku dhufo waa 32 laba qoran waxa wata 3 8 4 ku dhufo waa 2 4 8 ku dhufo waa 8 ku dar 12 hal waxa wata marka hala qortay hala wata
sideed afar xaqrufataa afar hal ku dar waa 5 jawaabtan waxay noqonaysaa 512 marka qaybta circle halkaas oo qaybteeni labaad ahaa ayaan halkan ku dhameynay qaybta kale intaan ku kulmi doono waa macna kiimiko oo idinkaga tagaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu